السلام عليكم وين وناكسن ولا الله انترس جرينا جعل إني جوارد وحكة برتام وحكة وقادان قاريجان و 2005 شيفي افيرو واي دالك مريكان كايا لقول لي هاي وقارية رو هاتشباك قدال وحن كبدلا هيرو كور وحالها قاريجا هيت كيسي محلها هيتك وحسود دي winter time كدولك قووغا so واني تصيدونا هيتك هير كوركا حقو قلايا لابداس دولال ايو ليهاي حدر waa laga soo saaray dib iyo mashaqo wuxuu dhiga waa arkaysiin waxa meesha laga soo furfuray waxa meesha laga soo saaray waa gaariyar oo steering wheelkiisi airbaggi the whole frame frontiga dhan ayaa la soo furfuray dhibaatadii leeyin halahan waa gaariyaha Mareykanka that's why dadku u jecleenin that's why dadku ugu shaqeeynin waa arkaysiin alaabtiisa qaar meel afuulo here record waa kana let me anisharax here record let me put my camera somewhere here alright I hope inay arkaysiin saan oo kala badana here record waa kana waa geedkan yar biyo kulula inta ka galaya biyo kulula inta ugu soo baxaya duleelkiisa ishwaataas biyo kulula meeshan galaya biyo kulula dhinacaan ugu soo baxaya waa geed aluminum laga sameeyay oo very oo indhihiisa aad u yar yar gudihiisa shabaq ah soo arkaysiin daxalkii bustada iyo wax ka daayo soo biyaha kulul markuu inta galo haddana inta ku soo baxaya engine-ku ku laabanaya dhaxdiisa so this wax kuleeyo then the motor the fan motor is here and electric motor kana meeshaan uu ku fadhiyaa so markuu heat ka shidid motorka dan kulaalkii wuxuu ku soo gelinaya gaariga dhaxdiisa ventilated meesha rabtid inuu markaas uu gaaro ama uu qaado so waa gaari yar oo Mareykan ah oo arkaysi mashaqada dibka dhacday dhinac kalena uu wareegaya here is the box the heater core meesha galaya waa kana boxka la nisha boxkan arkaysi heater core waa kaas labadiis af uu leegareynay too much coolant biyihiis meesha ku buuxo so waad arkaysiin afkiisa labadiis tubo meesha ku dhagan kana mid intuu ka galaya midna xagga ugu soo baxaya so plastigaas haduu mar jajabana waa ka kac plastic kale in la sameeyo marka qaarkiisa waa arkaysaan mashaqada meesha ka dhacday so we spend almost 6 saacadood ayaa furfurnay another 6 saacadood kale ka badan oo la isku xiraya ka bacdina waa la test gareynaya so haduu heat ka shaqeynaya hadii kale this engine waa engine very small 16 valves waaye tech 2 waaye and I rebuilt 2 times laba mar ayaa rebuild ku sameeyay rebuild maxal ah Soomaali maxal aha dib ayaa loo habeeyay engine-kiisa la isku keenay mar labaad ayaa engine-kiisa la sameeyay markii koowaad head gaskeedu ku dhuftay markii labaad timing-ka go'ay beltiga meeshaas oo engine-ka dhaxdiisa go'ay waa laga sameeyay so alhamdulillah now run good but day after day was ka ogtahay problem-kay qabaan gabaaradan they over and over way soo laabtaan so inshallah wixii extra soo bax video ah waan la soo socodsiinaynaa habeen wanaagsan